kulanti wacan oo wanaagsan waa markale barnaamijkeena kulanka waalidiinta. barnaamijkani ayaan dhageystay kugu sinna nasiixooyin iyo talooyin wax ku ool ah oo ku aadan waalidnimada ugu wacan ee markaas ugu wanaagsan. caruurta ayaa ku yeesha dalabaad fara badan waalidkooda iyo kuwa markaas xanaaniya. marka habka ay uga falceliyaan dalabaadkaasi ubadka waalidiinta iyo xanaaniyaasha ayaa tusida caruurta caalamka ay ku nool yihiin. caruurta ayaa aaminaada mise aamin darrada, badqabka mise cabsida, kalgacayl mise nacayb ka dareemaan kana qaataan habka keliya dadka ay markaas ula dhaqmaan siba waalidiinta iyo sida ay uga jawaabaan baahiyahooda. tusaale, canuga iskooleyda ah wuxuu bartaa habka uu dareemo kolkay dadka ka dhageystaan waxa uu sheego oo ay tixgeliyaan waxa uu markaas samaynayo. qaangaarada ayaa jecel markay waalidkooda la tashadaan oo ay la hadlaan kolka go'aanada la qaadanayo si fikirkooda loo dhageysto loo tixgeliyo. caruurta ayaa inta badan wajaha caqabada aysan markaas garanaynin sida looga falceliyo. waanu ka caawini karnaa in ay dulqaad u yeeshaan kolkay maskaxiyan diyaaroobaanna waanu bari karnaa xirfadaha iyaga markay u baahan yihiin. magacaygu waa Farxaan Cali Mukhtar. barnaamijkeena maanta waxaa noogu marti cilmi nafsiyaqaan aqoon-yahaan Caasha Xasan Cabdulle oo ah khabiirad ka hadasha arrimaha guud ee maskaxda iyo baahiyaha gaarka ah ee aadanaha kuna sugan caasimadda Nairobi. barnaamijkani ayaa waxaa laga dhageystaa Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya. waxaan doonaynaa dhageysta inaan maqalno afkaartaada ku aadan qodobkeena maanta. misaba ma haysaa su-aal guud ee aad doonayso inaan kaga jawaabno barnaamijkeena xiga, misaba soo jeedin iyo talooyin aad u haysid lana wadaagi rabtid waalidiinta kale kula midka ah, fadlan nagala soo xiriir barteena Facebook ee kulanka waalidiinta, mise fariin noogu reeb WhatsApp. lambarkeeguna waa +254 732 739. waan kaaga fadhinaa afkaartaada. caruurtaada u diyaar inay dhageystaan barnaamijka Sisime Shoka Sheeko oo hadda inoo xiga barnaamijkani. maanta waxaa ka mid ah waxyaabaha ay ku maqli doonaan. seetaha ilmo nabad miyaa biko haye labadiinoo maxaa dad xanaaqsan ugu egtiin? waxaan la xanaaqsanahay. intaanan u gudagelin barnaamijkeena maanta waan murtada fursad siinin aan wada dhageysano aragtida waalidiinta geeska Afrika oo aan wax ka weydiinay waxa ay markaas sameeyaan kolkay ilmuhu aad u weydiistaan shay oo ay ku celceliyaan su'aalo iyo dalabo fara badan la yimaadaan. sida tan ayay uga falceliyeen. cunugayga hadduu su'aalo i weydiiyo waa ku qasbanahay inaan ka jawaabo su'aaluhu i weydiinayo. hooyana waa macalinka koowaad ilmaha. hadday imaato wax iibitaan waa iibina meelaa ka keenabo. waxaa dhihi jira kurbana way kugu qaban, xanuunna way kugu qaban, meelaa ka keentana waa ku qasban tahay inaad u iibiso wax allaala wuxuu asaga u baahanaya nafsadiisa. haddaa markaa awoodina waa inaad qanciso markaa hesho inaad iibinayso shayga asaga ah. haddaa haysana horaa kasoo iibinaysaa. ilmaha waxaa waaye waxay ku weydiistaan hadday wanaagsan tahay ama ay kaa codsadaan ama maaragta iigad ay ku dhahaan way fiican tahay inaad maaragta aad u gadid. waayaho ilmaha waa iska maaragta way jecelin wixii iigad aad ay ku dhahaan inaad u gadid aad maaragta moraalka u dhisto loo gad ama wax muhiim hadday ku weydiistaan way fiican tahay in maaragta loo gado. cuniga hadduu u baahan yahay haddii ay tahaa wax oo fijigiisa heleynayso ama hadhowtee noloshiisa dambe ay saameyn ku yeelanayso waan ka joojin lahay bataatan. hadii laakiin wuxuu u baahan yahay sida ahaato oo daruuri ah sida camal dharka, kabaha, buuga, qalinka waan u iibinaa. hatta haddii deen ahaato waa usoo qaadan maxaa yeele wax oo horumar ku gaaraba. tan kalena haddii ay tahay waxa suuq ana jooga camal haddii uu yidhaho waxaana u baahanaa wixii haddii ana ahaayo lacagta jeebka aan ku haay waan u iibinaa. haddii laakiin aan haynin waan waabinaa. waxaan dhahay insha Allah berida ma bari kale aan ku gadaa. ordo halba waxa ka horeeya wixii as ku weydiinay ama ayada ku weydiisanayso inaad horta gacanta ku hayso. haddaad gacanta ku hayso horta waalid ahaan waa waajib saaran waa inaad magaranaysaa ilmahaadi mar walba aad fiiriso. ilmaha deriskaadi ay magaranayso oo waxay maanta xiran yihiin. waxa fiican hooyo walba waxay jeceshahay inay ilmaheedii horgaarsiiso amisa wixii maanta magaalada ku jiro inay xirto. waa tahay Caasha ku soo dhow barnaamijkeena. ugu horeyn waxaad sharaxaad yar oo kooban naga siisaa caruurta waxa ay rabaan kolkay ooyayaan oo ay buuqaan kana soo horjeestaan waalidka. run ahaantii waxyaalo badan ku saabsan waa inay ciyaalka iyo waalidiinta iskhilaafaan oo is-eedeeyaan oo maxaan lahaa isdagaalaan. waxa ka saabsan waxa waaye cunuga lacala inuu eed heesto inuu digtoonin rabo diidma ka ah hooyaday way diiday soonina waa diidaya amse aabay way diidaanna waa diidaya. ciyaalka niyad jab buu ku dhacaa,
markii ciyaalka niyad jabsan yihiin ayagana dagaala ka bilowda ayagii hooyooyinkooda mase aabaha waalidiinta. wax kaleeta waxa waaye badankooda waalidiinta waxay u moodaan gacan ku qaadku inuu wax wanaagsan yahay, balse markuu arko in waalidka gacanta u qaadayso markasta mase dilayso asagana markaa u barani rabaaba qaara waa u bartaanba dagaalka. waalidiintu siday ku fahmi karaan baahida uu qabo canuga kolka uu markaasi hadli karin? cunuga marka u horeyso markuu gaajaysan yahay, markii diaperska laga bedeli rabo, markii maxaa la dhahaa xaalad fiican ku sugneen mise aan dhahno kuleel mase qabow u dhibayo, cunugu ooyaya. waxay ku ogaanayaan haddii caano la siiyo wuu aamusi karaa, haddii dharka loo bedelo mase diaperska loo waxay wuu aamusi karaa. maxaa ka dhalan karaa haddaanu iska indhatirno oo aanu dhagaysanin oohinta iyo dalabaadka faraha badan ee canuga? waxyaalo badana ka dhalani karo. waxaad arkaysaa waalidiinta badankooda waxay dhahaan caasinimada ma iska imaado. ilaahay wuxuu ku abuuray qofka dabeecadana marka u horeyso cunuga markuu dhasho ilaa 6 sano dabeecadda markaas loo hagaajinayo uu lahaanaya. haddaa aragtid cunugan markuu ooyo, cunuga wuxuu bilaabaya inuu nafsada iyo dunida u nabcaado. markuu weynaadana waxaa arkaysaa naag kasta mase nin kasta iskala xadgudbayaan, sidii rabaana u dhaqmayaan. camalka sida xanaaqa badan iyo kuwa kaloo markaasi caadi ku ah nolosha caruurta, maxaa la gudboon waalidiinta si ay wax uga qabtaan mase uga bedelaan taasi? camalku wuxuu ka dhashaa arrimo ka mid ah waalidka hadduu daragelinin cunuga markuu yaryahay. waxaa arkaysaa xoogaa ka bacdi camalkoodaas bedelay, ayaga dhan meeshay rabaan ay ku oynayaan, mase waalidka ma daryeelayo, uu mashquulsan tahay mase waxay suubinayaan. cunugan wuxuu u oynayaa inuu hooyadii mase aabihii isku soo jeediyo. cunuga markaas waxaa ku fiican inaad la fadhiisatid, la hadashid, u weydiisid hooyo maxaan kuu qabtaa. badankiisana ciyaalka waxay u ooyaan markay arkaan qof ay aaminaan inay haysanin. tarbiyayn noocee ah ayay waalidiinta adeegsani karaan kolkay ilmuhu lasoo baxaan camalo noocaasi oo xunxun? ubadka waxa uu ku tarbiyani kartaa horta dhanka fiicnaanta fiiri. cunugaaga markuu wax xun suubiyo maxaad ku dhahdaa? ma hadal wanaagaa la soo gashaa mase hadal xun? subaxdii markuu soo kaco ma tukada iska dheh, hal maalinuu iska soo kace wuu tukaday wuu kuu imaaday. hooyo waxaa lagaa rabaa waqtigaas inaad ka faa'iidaysatid, aad dhahdid maasha allah wiilkaygiio gabadhaydiio saaniyo saanaad tahay. hadalka macaan badankeeda soomaalida waan ku yarnahay. xilligani hadda uu caabuqa korona dunida gelgelay, caruurtu ayaa gees maray jadwalka caadiga ahaa oo ay markaasi u barteen iskooleed. waalidiintu siday uga caawini karaan ubadka in ay markaasi la qabsadaan marxaladani? run ahaantii waqtigan coronavirus aan ku jirno waa waqti xun, ciyaalka isbedel badana ka dhaca, laakiinse waqti fiicanna waaye. waqti fiican oo aad familkaaga la fadhiisatid, aad dabeecadahooda kala ogaatid. meeshan waxaa arkaysaa routines badan suubini jiren. subaxdii kaac, dugsi aad, soo laabo qadee, seexa mase dugsi ku laabo, marka dambeeta soo laabo ciyaar. waqtigaas dhan ma haystaan hadeetool, xaafaday ku xiran yihiin. maxaa suubini kartaa inaad adoo gurigaaga joogtid inaad cunugaaga la ciyaartid? isagana muxuu jeclaan lahaa inuu ka horbilaa? iskuullada hadii la xira, meelaha hadii la xira, macnaheeda ma aha waxbarasho waa la xira. waxbarashada xaafadda xataa waa laga bartaa. bar maxaa lahaa si dadka loola hadlo, bar maxaa la dhahaa macaamiisha xaafadda. daal 3 ciyaal haysta mase 2 ciyaal haysatid, bar sida iskula dhaqmi lahaayeen eena xaafadda ayagoo joogaan raaxo ku heli lahaayeen iyo farxad. naseexo mise talo ku aadan fahanka mise garashada baahiyaha ubadka oo aad u hayso waalidiinta? waxaan u diri lahaa waqtiga wuu isbedelay. ma maantay tool waxaa tahay waalidkii wixii lagu soo barbaariyey barbaarinaya ciyaalkiisa, mase waxaa tahay waalidkii oo maanta tool ka faa'iidaysanaya waqtigiisii oo baranaya macaamiisha ciyaalka. waqtigii wuu isbedelaa. cunuga maanta fashion uu kula imaani karaa mase wuxuu kula imaani karaa. isweydii ma waalidka sidee ula dhaqmaysaa cunugaaga? uusan arkin hooyaday mase aabahay ma daryeelaan familka, anna maxaa u daryeelaya? isan arkin hooyaday iyo aabahay wax ma aqristaan, anna maxaa u aqrinaya? waxa suubi siduu cunugaaga suubinaya. cilmi baro, hana noqonin kaligiis taliya. hagaaga haddana su-aalaha inaga soo gaaray dhegaystayaasha Kenya. dhegaystaana waxa uu leeyahay canugayga runtii aad ayuu u dalbadaa inaan waqti siiyo oo aan maskaxdayda isaga u jeediyo, siiba xilligan aan guriga kasoo shaqaynahay oo aan qabo kulmo kala duwan ee khadka. maxaan samayni karaa si uu markaasi cunuga uu ii dhibin oo aan anigana shaqadayda u wato oo isaga iga soo dhexgelin? inuu wax dhacda ayaa mahan. maxaa la dhahaa cunuga 2 nooc caynaa jiro. midoo saaid attention seeking oo ah
oo markasta raba maxaa la dhiirigelinayo in la fiirsado iyo mid oo maxaa la laba arkin oo suubinaya alaabo in la arko cunugaaga hadaad cunugaaga fiirinaysid wuxuu suubinayo iyo waxaas uu ma ku dhibi doono laakiin haduuna ku soo dhibo ogaaw marka waqti shaqo leedahay ina meel iska fadhiisatid adii meel hadaa fadhidid as long as cunuga inuu waxdan isku suubinin oo ham dhageysan Ethiopia waxa uu leeyahay canugayga ayaa xilli hore hurdada ka kacaa inagana tayda iyo khasa hababkay ayaan adeegsan karaa si uu waqti ku filan u seexdo subaxina hurdada oo iga khasin xilli aad u horana oo u kicin kuwaas camal habeenka hadii waqti fiican seexdaan subaxdii waqti fiican asla soo kicaysin laakiin hadii waqti maxaa la xun seexdaan ee waqti xunna soo kacaan labadiina baa isku dagaaltamaysiin Djibouti dhageysan waxa uu leeyahay carruurtayda ayaa inta badan iyaga iska qabsada oo isdagaala iyaga maxaan sameyn karaa taasi si ay guriga uga dhicin ciyaalkaaga inaad jecel isku abuurtid waay ogaadaan ma iska maarmaan kaligood soo cunugaaga bar sida la isku keena jecel ahaan hadaad wax u soo gadaysid midka kale tan ha ka ilaabin hadaad shuminaysid midka kale ha ka ilaabin tusna saaciideenta wax ma ka dhimayso qofka balse way ku faa'iideysaa Soomaaliya dhageysan waxa uu leeyahay carruurta yaryar siiba miyiga waxa loo igmadaa oo loo dhiiba mas'uuliyado kala duwan oo ka waaweyn sida ari raacida oo kale malas dhihi karaa taasi ayaa u horseeda inay noqdaan kuwa qaadi kara mas'uuliyado oo ku soo bixiya dad hawlkar ah kolkay weynaadaan waa dad maxaa la dhahaa mas'uuliyad qaadi karaan soo dadkaas camal environment-keena wuuna shib gareeya dabeecadna waa lahaanena environmentna waa ka keensani karna dabeecadaheena markii baadiyaha lagu koriyo markay ariga raacayaan masalgeelka raacayaan waxay baranayaan in sida loo dargeliyo dadka kaleeto haddii xoolaha daryeeli karaan maxaad u moodaa dadka waaweynka oo bil'aadamka ah halkaasi ayuu nooga egahay barnaamijkeena maanta balse ha iloobin inaad carruurtaada la dhageysatid barnaamijka Sesame Sheeko ee hadda inoo xiga sidoo kale waad mahadsantahay khabiiradeena maanta sida wacan oo aad qayb uga noqotay barnaamijkeena dhammaantiin waad ku mahadsantihiin la janqaadkeena barnaamijkeena maanta intaan hawada ka bixin waatan Eedo Ebyan iyo xikmadeeda maanta Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa beer biyo ninkay ka xumaatay bari dambe u baxdaa beer dadeed ninkay ka xumaatase bowdadu ka jabaa macnuhu waxa weeye waa in qofku uu ku dadaalo tarbiyada wanaagsan ee carruurta waayo haddii marka ay da'doodu yar tahay si wanaagsan loo barbaarin waayo dib dambe looma toosin karo sidoo kalena waa in waalidiintu la socdaan codsiga iyo su'aalaha carruurtooda marka ay da'doodu yar tahay haddii mar walba cunuga waxa uu rabo loo diido iyadoo la awoodo ama su'aashiisa la iska dhaga tiro waxa uu yeelanayaa fikir ah in la xaqirayo waa in carruurta aan u dhaga nuglaano oo rabitaankooda daryeelo mar waliba xitaa haddii ay awood ku saamixi weydo waa in cunuga lala hadlo oo runta loo sheego lagana ballan qaado codsigiisa in la tixgelinayo hagaag barnaamijkeena xiga ee kulanka waalidiinta waxaan idin haynaa qodob kale oo aad xiiso u leh maxay muhiim u tahay in carruurta loo kala dhiibo mas'uuliyada guriga kolkay joogaan waxay ka dhigaysaa kuwa markaasi hawlkar ah oo mas'uuliyada loo egman karo ka soo bixi kara markasta iyo meel kasta waxayna ku dhiirigelisaa inay noqdaan kuwa la yimaada hal abuur maxaad ka codsataa carruurtada yaryar inay sameeyaan kolkay guriga joogaan miyay ka caawiyaan dhaqida suxuunta jaridda cawska may jecel yihiin inay ka caawiyaan waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartada dhageysta fadlan nagala soo xiriir barteena Facebook ee kulanka waalidiinta mise fariin nagu reeb WhatsApp-ka lambarkayguna waa +25432 waan kaaga fadhinaa afkaartaada mar kale ka dhageyso barnaamijkeena kulanka waalidiinta idaacada Radio Fana dalka Ethiopia Star FM Soomaaliya iyo Star FM Kenya intaan barnaamijkani mid ka xiga ku kulmayno waxaan idin kaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo waxa inoo maqan Sesame Sheeko